الله وبركاته waxaan halkan maanta nigu hayaa barnaamij yar oo gaaban oo ah dhiirigelin iyo wacyigelin dhalinyarada Soomaaliyeed haday wiil iyo gabar tahay waxa looga baahan yahay qofku inuu hadaf yeesho waxay ka dhigan tahay waa inuu naftiisa u ka dhaadhiciyo sidoo hadaf u yeelan lahaa qorshe u yeelan lahaa taas waxay ka dhigan tahay noloshan aadamuhu waxay ku dhisan tahay waa qorshahaasina waa qorshe nafta lagu maareeyo waa qorshe shaqada lagu maareeyo iyo qorshe qoyskaaga lagu maareeyo markaas taa iyadoo ay tahay maanta waxaan halkan ku qorfayn doonaa afar qodob oo ah afar qodob oo anfacaya afarta qodob ee anfacaya qofku inuu hadaf yeesho waxa looga baahan yahay inuu ku dhaqmo oo ah qofku waa inuu qof isku kalsoon uu noqdaa markaan leenahay waxay ka dhigantay qofku waa inuu yeeshaa qofku waa inuu sameeyaa wixii la weydiiyo intii garaadkiisa ama karaankiisa inuu ka jawaab qofka qancin kartana inuu siiyo isagoona dagaalamin isagoona caytamin isagoona fadeexayn qofka waa koow qodobka labaad waa inuu noqdo qofku qof runka hadalka jecel ama xiiseeya markaan leenahay runka hadal markaan leenahay qofku waa inuu yeeshaa qorshe naftiisan uu ka dhaadhiciyay hadaad been sheegtid ilaahay baa ku qabsan hadaad qof ribaysid ilaahay baa ku qasban waa inuu qofku iimaan yeeshaa marka dhigan tahay qodobka kale qofku waa inuu isku taxalluujiyaa sidoo cilmigiisa aqoon ahaaneed garaad ahaaneed uu u biirsan lahaa ta kale cilmiga aqoontaada aad biirsanaysid waxay ka dhigan tahay qof ku soo dhashay ma jiro cilmiga balse laakiin marka la soo baxo ee la dhasho iyaa lagu bartaa kan garanayn inaad cilmi siisid ka garanaya inaad cilmi ka qaadatid iyaa lagaaga baahan yahay walaalkayga marka wixii nafacayo inaan wadaagno ayaan jeclaystay inaan wax walba aan wixii aan cilmi nagu dhaamana aan nii soo kordhiyo waxaad idinkuna igu dhaantaan inaan idinka qaato taawacad baa ku maray wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijka lamid ah intaan ku kulmi doono is arag dambe iyo xiiso leh ayaan niga tegayaa beeshkaygana idinkii ku cusub ama cidii ku cusub waa inay subscribe saartaa waa inay videoga daawataa saasaan waan idin jeclahay waan mahadsantihiin daawashada